سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن عدون أصحاب تهبض نقل صعوتاي يولي بكوا قد أهانبا برها بلشدا وسيطوس مقباهيو إذن كذا إيمانيو وحان إذن ليهاي كلن وناكسن ومركلي برامج كداعات يتدوات كقبلكا وأين قصو قادلو برامج جدني waxyaabaha ugu xiisaha badan iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiinta ugu cadcad ee waxqabadka badan ee gobolka waqooyi bari Kenya. haddaba Ibrahim Maxamed Ashkar ayaanu barnaamijkan diiradda ku saari doonaa hadduu guula saamaxo. anigu waa Maxamuud Daacad. mar kale waxaan saaxiibayaanida leeyahay haween wanaagsan intuu maalintu ay u tahayna maalin wanaagsan Ramadaan Kariim. إبراهيم محمد أشكر مسؤولينتا ugu waxqabadka badan waliba asagoo wiil daayar isla markaana horjoogo ama guddiga ugu sare kamid beesha xukuumadeed waxay isla markaana beeshan ay u magacaabeen in uu xubin sare ka noqdo maadaama uu asagu yahay mid waxqabad badan hayeeshee intaasoo keliya ma ahe Ibrahim Maxamed Ashkar wuxuu isla markaana ka mid yahay guddiga iyo waliba uu ololeynta in ay dhalinyaradu ay helaan cadaalad iyo waliba sidoo kale xorriyad magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya. Ibrahim wuxuu dhalinyarada asugu ku taageeraa maadaama mararka qaar ee Kenya ay ka dhacaan waliba Nairobi israaf inta markaasna sharciyada ay haystaan iyo waliba kuwa markaa u baahan in taageero la siiyo si ay u helaan xorriyadoodii ayuu Ibrahim Maxamed Ashkar uu siban uga soo muuqdaa. barnaamijku waxaynu sidoo kale Ibrahim Maxamed Ashkar inagoo suurtagelin doono hadduu guula saamaxo in aan qadka telefoonka aynu si toos ugu wareysano. halkan waa Live News Somali TV. haddaba Ibrahim Maxamed Ashkar wuxuu loolan badan u galay xagga in uu isla markaana ku dabaasho xilka MCA deegaanka Fafi Ward maadaama uu asagu ka soo jeedo deegaanadaasi. barnaamijku waxaynu isla markaana ka dhigi doonaa asxaabta hawada nagala socota barnaamij taxana oo aynu ku soo qaadan doono waxqabadka iyo waliba sidoo kale ka soo muuqashada u adeegida dhalinyarada Soomaaliyeed isla markaana maadaama uu yahay nin jecel in uu mideeyo la helo cadaalad sinaan iyo waliba in bulshada ay noqdaan kuwo markaasna nabadda si weyn uga qayb qaataan waa dalka Kenya ee gobolka waqooyi bari.